wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. halkani waa janalka wararka ee Samakaab TV. xilli walba waxaan soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dalka gudihiisa ka dhacay akhbaaraadka kale ee ka qarsoon. qodobada wararka aad daawan doontaan haddii ay beedmo waxaa ka mid ah cawad oo weerar culus ku qaaday Somaliland kuna tilmaamay madaxweynaha Muuse Biixi inuu yahay hogaamiye doonaya inuu dalka kala qaybiyo. Somaliland muddo kooban ayay u qabatay inay Puntland kaga laabato tallaabo ay qaaday oo dhanka xuduudda Somaliland iyo Puntland ku saabsan. sababta keentay in Somaliland cadaadis xooggan ay kala kulanto dhoofka xoolaha ayaa inay soo gudbin doonaa. Ahlusunna wal Jameeca ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayay gebi ahaanba ku wareejisay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhawaan la qarameeyay iyo ciidamada Soomaaliya oo dowlatus military oo aan caadi ahayn ka bilaabay gudaha dalka Itoobiya. soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahana subscribe noo saar gambaleelkana taabo si markasta wararkeena iyo warbixinadeena ay ku soo gaaraan. ugu horreyntiina haddaan wararkeena ku bilaabo, cawad ayaa waxa uu weerar culus ku qaaday maamulka Somaliland iyo madaxweyne Muuse Biixi. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa mar kale ka hadlay tallaabadii dowladda federaalka ay xiriirka ugu jartay dalka Guinea ee galbeedka Afrika. wasiir Cawad ayaa sheegay in wadanka Guinea ay rog cas u dhigtay hogaamiye sheeganaya inuu kala qaybiyo Soomaaliya oo dalka inuu laba ahaado doonaya, isla markaana waxa uu xusay inaysan tallaabadaasi Guinea waafaqsaneen xiriirka caalamiga ah. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in dowladda federaalka marnaba aysan aqbalaynin in la kala qaybiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, isagoona digniin u diray wadamo kale oo uu sheegay inay gacan ku leeyihiin in ummadda Soomaaliyeed la kala qaybiyo. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri Guinea waxay marqaati cad u tahay sida ay u doonayso inay soo dhaweyso hogaamiye ku andacoonaya inuu kala qaybiyo dalkiisa oo uu qayb yar meel ku haysto. dalkaas Guinea haatan waa uu la kulmaya cawaaqib xumada arrintaasi ka dhalatay oo uu aad u wajahaya, waxaana uu la kulmaya cadaadis badan oo kaga imaanaya ururada caalamiga oo aan ka mid nahay sida UN-ka, iskaashiga islaamka iyo sidoo kale ururo kale oo Afrikaan ah. markaan waxaan u maleynayaa Guinea waxay u nugushahay cadaadis dalal kale ugu imaanaya. arrintani ma habboona oo xadgudub ayay sameynaysaa. marka anagu waxaanu doonaynaa inaan sheegno in nidaamka uu yahay markasta mid lagu wada dhaqmayo. koox walba meel ayay imaanaysaa, waxaana ay doonaysaa in dal madax bannaan laga dhigo oo dal kale oo aad u wanaagsan ay ka go'do. taasi ma wax marka uu dal walba soo qaadanaya ama uu soo dhaweynaya micnaheedu waa maya. wuxuu intaasi ku sii daray haddii koox kasta ay doonayso inay gooni u noqoto, dalal badan ayaa waa hore kala tegi lahaa. ma doonayno Soomaaliya in markasta la kala qaybiyo, hogaamiye nin sheegtana dal inta la geeyo roog cas lagu soo dhaweeyo. taasi Afrika iyo adduunka kaleba iskuma raacsana. haatan dunidu waa isku soo dhawaanaysaa oo iyada ayaa isku biiraysa meelna uma kala socoto. arrimahan Guinea ay ku dhaqaaqdayna waxay ciriiri gelinaysaa wada hadaladii dadka Soomaaliyeed u dhaxeeyay. ma doonayno inaan cadaadis fara badan saarno walaalaheen, laakiinse markasta waa inaan midnimadeena kaashanaa ishana ku haynaa, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlayay tallaabada ay ku dhaqaaqday dalka Guinea roog casna ay u dhigtay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, taasoo Somaliland maalmahanba ay si weyn iskula boorboreysay. hagaag Somalilandna muddo kooban ayay u qabatay Puntland inay isaga laabato tallaabo aad u adag oo ay qaaday. saraakiil ka tirsan ciidamada Somaliland ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaanood, waxayna ka digeen cawaaqib xumo ka dhalan karta tallaabo uu qaaday maamulka Puntland. maamulka Puntland ayaa koontada laga soo galo magaalada Garowe u wareejiyay xuduudka gobolka Sool, midaas oo si weyn uga careysisay ciidamada militariga ee maamulka Somaliland oo sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale isaga go'een. saraakiisha ayaa tallaabadan Puntland ee koontada ku soo wareejisay ku sheegay mid Puntland ay ku doonayso inay dhul aysan lahayn ay isku fidiso, iyagoona xusay in Somaliland marnaba aysan ka yeeli doonaan inay deegaano cusub oo iyadu aysan shaqo ku lahayn ay isku sii fidiso, taas oo dhulboob ay u arkaan. saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay maamulka Puntland ku eedeeyeen inay deegaanadaasi ka wadaan xaalad nabadgelyo darro ah, iyagoona ku hajabay haddii Puntland ay meeshaasi sida ugu dhaqsiyaha badan isaga bixi weyso muddo 3 cisho gudahooda ay tallaabo culus qaadi doonaan. wuxuu yiri sarkaal ka mid ah ciidamada hadlay, waa joojiya dhulboobka aad wadaan, midaasi inii suurtogeli mayso. 3 cisho gudahood waa inaad halkaas isaga laabataan, nabadgelyadiina iyo naftiina ilaashada oo amniga aan ka wada shaqeysano, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha oo warbaahinta la hadlay. wuxuu intaasi ku sii daray haddaydan joojin tallaabadan cawaaqibka ka dhasha adinka ayaa dusha saaran doona. Garowe dib uga laabta oo xaduudka markasta ha ahaado
mid labada dhinacba madax bannaan. waa tahay haatanna sababta keentay in Somaliland ay cadaadis xoogan kula kulanto dhoofka xoolaha ayaa inii soo gudbinaynaa. xogayaha arrimaha carabta iyo dowladaha islaamka ee xisbiga wadani Axmed Safiina ayaa ka hadlay cadaadiska iyo caqabadaha dhoofka xoolaha ee Somaliland haatan soo wajahaya. xogayaha Axmed Safiina ayaa sheegay in Somaliland ay cadaadiskaasi ugu wacan tahay muhiimad gaar ah inaysan siinin iibka xoolaha iyo dhoofkooda. xogayaha Safiina ayaa xukuumadda Muuse Biixi u soo jeediyay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka saarto xoolo dhoofinta isla markaana laga dhigo wasaaradda madax bannaan shaqooyinka iibka iyo suuqeynta xoolaha loona bixiyo wasaaradda xoolo dhoofinta. xogayaha arrimaha carabta iyo dowladaha islaamka ee xisbiga wadani ayaa arrintaasi kaga hadlay qoraal dheer uu soo dhigay bartiisa Facebook waxaana uu dhignaa sida tan 24 Maajo ee sanadkan waxaan ku baaqay in wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga laga saaro xoolo dhoofinta lagana dhigo wasaaradda madax bannaan shaqooyinka iibka suuqeynta iyo sidoo kale xoolo dhoofinta loona bixiyo wasaaradda xoolaha dhoofinta. laakiin arrintaasi dheg jalaq looma siinin waxaana arrintan ay noqonaysaa wax aad u xun. haatan mar kale ayaan ku celinayaa in arrimahaasi la soo celiyo. mudane madaxweyne dalkeena waxaa laga dhoofiyaa kumanaan xoolo oo isugu jira neefaf geel ah, ari iyo sidoo kale lo, waxaana xoolahaasi ay yihiin waxyaabaha ugu badan ee dhaqaalaha Somaliland uu ka soo xaroodo. xoolaheenna waxaa ka soo xarooda neefkii ariga ah $12, neefkii geela ah $55, neefkii lo-daana $35. lacagtaasi cadadkeeda balfiiri canshuurta waxyaabaha kale ee ku saabsan maxjarka barbarada kadeeda meelaha ay ku baxaan. guud ahaan waxaa loo baahan yahay in si gooni ah inta la isugu daro aad looga xisaabtamo. marka la isku geeyo guud ahaan xoolaheena waxa ay gaarayaan malaayiin xoolo ah oo wadamada caalamkan u geeno gaar ahaan qaliijka. haddii aanu arrimaha dhaqaalaheena iyo waxyaabaheena gaarka noo ah aan inagu isku duwanno waxaa lacagahaasi ay noqonayaan kuwo fara badan oo guud ahaan dalkoo dhan ku filan. laakiin halkaas waxaa ka muuqda musuqmaasuq. markastana waan ku qasbannahay inaan la kulanno cadaadis nooga yimaado Soomaaliya iyo dalal kale. haddii talooyinka la isku soo jeediyo iyo waxyaabaha kale ee muhiimka aan la iska qaadanaynin maxaa dowlad lagu yahay, maxaa adduunka lagula xisaabtamayaa, maxaynu dunida u sheegaynaa? tani waa waxyaabaha aadka looga baahan yahay inaan wakiil u noqono dhexdeena oo aan saxno. dowladii kacaanka ee madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa ay lahaa jirtay wakaalad xoolo dhoofinta oo madax banaaneed oo wasaaradda xanaanada xoolaha gooni ka ah maareeyo ayayna lahayd. bal fiiri sidii ay u shaqeyn jirtay kaliya iibka xoolaha iyo suuqeyntooda ayay qaabilsaneed. haatan wixii oo dhan waa isku qasteen. waxaan la doonayaa in arrimahaasi la kala qaado midba goonideeda ay gaar u ahaato, ayuu hadalkiisa sii raaciyay ninka xisbiga wadani u qaabilsan arrimaha carabta iyo sidoo kale qaliijka. waxa uu sheegay haddii xoolo dhoofinta ay Somaliland gooni isha ugu hayso oo waxyaabaha dhan oo tala ahaan loo baahan yahay la wada qaato, arrimahaasi ay noqon karaan kuwo wanaagsan, wax badanna laga keeni karo cadaadiska ugu imaanaya Somaliland. iibka xoolaha oo dalalka carabta ay u geynayso Somaliland ayaa waxaa maalmahanba soo wajahaya caqabad weyn oo ku saabsan xoolo dhoofinta. markab siday xoolo fara badan ayaana waxaa lagu celiyay magaalada Jidda, kaas oo la sheegay inuusan warqadda ruqsadda ee caafimaadka uusan ka soo qaadan dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse markii dambe dowladda ayaa garowsatay inay markabkaasi sii dayso. waa tahay haatanna Galmudug Ahlusunna wal Jameeca ayaa ku wareejisay ammaanka magaalada Dhuusamareeb ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. ciidanka nabad sugidda iyo booliiska ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegay guud ahaan amniga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. ciidanka la wareegay sugidda amniga Dhuusamareeb ayaa ka kooban ciidankii hore ee nabad sugidda iyo booliiska iyo ciidamadii Ahlusunna ee dhawaan la qarameeyay laguna biiriyay nabad sugidda iyo booliiska. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre uu heliyay wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow, wasiiru dowlayaasha arrimaha gudaha, difaaca iyo howlaha guud iyo sidoo kale madaxa fulinta ee Galmudug ayaa ciidamada kormeeray si ugu dhiirigeliyaan gudashadooda mas'uuliyadda weyn ee qaadayaan ugana mahad celiyo hanaankii wanaagsanaa oo ay u soo shaqeeyeen amniga. ra'iisul wasaaraha ayaa ciidamada kula dardaarmay in hanaanka ugu habboon ay ugu shaqeeyaan sugidda amniga caasimadda Galmudug iyagoo wada jira oo aan magacyo kala duwan lahayn, kana amar qaata xukuumadda Soomaaliya. xuquuqdoodana ay dowladda federaalka Soomaaliya bixi doonto. waxa uu si gaar ah ugu ballan qaaday in ciidamada dhawaan la qarameeyay ee xuquuqdooda ku leeyihiin dowladda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badanna loo bilaabi doono. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ciidanka ku booriyay inay la yimaadaan dulqaad, qalbi wanaag, isjacayl, wadaninimo, Soomaalinimo, tusaalena ay u noqdaan shacabka Soomaaliyeed, cadowgoodana ay mar kasta noqdaan kuwo baqdan geliya. waxa uu taliska ciidanka Soomaaliya
kula dardaarmay in u fududeeyaan ciidankani waxyaabaha kale ay u baahan yihiin oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu geeyo halkaas si ammaanka magaalada Dhuusamareeb ay markasta qayb fiican uga qaataan. Xasan Cali Kheyre ayaa uga mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay dadaalka lagu bixinayo ciidamadan amniga si buuxda uga howlgalaya caasimadda Galmudug iyo guud ahaan deegaanada Galmudug, taas oo uu sheegay in ciidamadaas ay u baahan yihiin in si wanaagsan loo dhiirigeliyo. ciidamadan ayaa waxaa ku jira kuwii dhowaan la qarameeyay kadib markii heshiis ay wada galeen dowladda federaalka iyo maamulka Al-Sunna wal Jameeca oo ciidamadaas intooda badan gacanta ku hayay. Hagaag ciidanka Soomaaliyana dhoolatus military ayay ka bilaabeen gudaha dalka Itoobiya. ciidamo Soomaali ah iyo kuwo kale oo ka kala yimid dalalka NATO iyo kuwo kale oo ku yaala Geeska Afrika ayaa dhoolatus military waxa ay ka bilaabeen bariga dalka Itoobiya. ciidamadani oo tiro ahaan gaaray ilaa 1,000 askari ayaa soo bandhigaya dhoolatus aad u ballaaran. ujeedka laga leeyahay ayaa waxa ay tahay carbiska militariga oo aad loo xoojinayo guud ahaan dalalka Afrika, taas oo la doonayo in ciidanka Soomaaliya ay guud ahaan la wareegaan ammaanka dalka oo Amisom ay kala wareegaan. Mareykanka ayaa maalgelinaya dhoolatuskani oo socon doona muddo 2 toddobaad ah. dalalka Afrika ee ka qayb galaya waxaa ka mid ah Soomaaliya, Djibouti, Uganda, Ethiopia, Rwanda iyo sidoo kale howlgalka Amisom oo qaar ka tirsan ciidamada Amisom ay halkaasi ku sugan yihiin. dowladda Itoobiya ayaa sanadkii labaad martigelinaysa dhoolatuskaas oo loo magac daray JA-19. Soomaaliya oo hadda ka soo kabanaysa burbur xoogan ayaa fursad muhiim ah u tahay inay soo bandhigto xuduudeeda military kana faa'iideysato carbiskaasi. ciidanka xoogga dalka oo si wanaagsan dib loogu howlgeliyay ayaa Amisom ee kala wareegaya amniga guud ahaan dalka sida la qorsheynayo oo dhawaan la rajeynayo inay guud ahaanba dalka isaga baxaan. guud ahaan daawadayaal warkeena intaas ayaan ku soo gabagabeeynaa. fadlan waxaan ka codsanaynaa daawaday haddii aad channelkeena ku cusub tahay inaad subscribe inoo saarto gambalaalkana aad taabato si markasta wararkeena iyo warbixinadeena ay ku soo gaaraan, sina share garaysiya saaxiibadada kale u sii daawadaan. nabadgelyo, ammaano Allah.